nolosha oo dhanba waxay ku dhisantahay trigonometry xataa wadnahaaga beatkiisu wuxuu ku dhisan trigonometry saaruuqa in halka ka rido halka arabto inuu ku dhaco goob mucaayana location mucaayana waxaad u baahantahay inaad calculate angle-ka aad trajectory-ga uu ku dhacayo distance-gu u jiro waa trigonometry waa saddexagalka waa trigonometry weeyaan dadku waxa laga yaabaa in dhaqaalaha haysta inay ka fikiraan ilmahooda inay la cararaan oo ay geeyaan wadamo kale laakiin ka fikirmayo war systemkii aad ku noolayd si loo hormariyaa in dadku ay bartaan businesska xooga la saaro fikrad xun maaha waxbarashadeenu ma soo saarto qof akhlaaqdii loo baahnaa leh waxbarashadeenu ma soo saarto qof leh skillkii loo baahnaa waxbarashadeenu ma soo saarto qof leh yani attitude-kii xataa tasawurkii loo baahnaa qof leh ma soo saarto intaan yurub joogay weli ma arag dad yurub wareegaya u campaign garanaya waxbarashada in la taageero nolosheeda ma arag ever muddooyinkii dambe waxaa muuqata akhlaaqiyaadka ardayda ka soo baxaysa dugsiyada sare ama ku jirtaba inay aada usii hooseynayso oo in badanoo ka mid a hadda waa soo taataabatay waxaa arkaysaa arday maamulkoodii gaawaridooda jijabinaya ardaydu hadda dharkii ay wax ku baranayeen ay jeexjeexaan oo wax ku qoraan runtii dhaqamo tigtogan wax badan ba soo kordhiyey marka ma nidaamkeena waxbarashada dadka noocaasa hadda soo saara mise xagee salaad iska qaban lahaa waa su-aal runtii in aada la isu weydiiyo u baahan waa meeshan hadda ay ka lahayn qofku inuu iskuul aado macnaheedu maa inuu wax barto yani qofka waxbarashadu waa inay bedesho ogow qofka waxaan uu baranayo laba waxba waa inay faa'iideyso kow horta waa inay reality-ga connectionka waxbarashadu la leedahay waa in ardaygu u fahamsan yahay yani waxaan aad baranayso muxuu reality-ga yani real world-ka muxuu calaaqo kala leeyahay qofku motivation heli mayo haddii aanu fahmin waxaan uu baranayo meaningka ay u samaynayso iyo macnaha ay u samaynayso waabaan runtii aad waxaan isu weydiin jiray waniyahow runtii dadka aada xisaabta ugu fiicanna waa ahaa trigonometry muxuu nolosha iga anfacaya trigonometry maantana cos iyo sin iyo tangent iyo cotangent iyo waxaasaa maanta la dhigaya real world-ka muxuu ka anfacaya soo ma garan waadamba marka waxaan ogaaday nolosha oo dhanba waxay ku dhisantahay trigonometry xataa wadnahaaga beatkiisu wuxuu ku dhisan trigonometry waa dhexaasa mar baan waxaan publish garay paper ku saabsan sida salaadaha waqtigooda loo xisaabiyo internetka waa kala soo degi kartaan qofkii rabaa waxaa la yidhaahdaa tracing the shadow mathematical calculation of prayer times using spherical trigonometry titleka using spherical trigonometry soo ma aragtaan salaadihii aynu tukanayna ee waajibka ahaa waqtigiisii waxaa lagu xisaabinayaa maxay u baahatay trigonometry dhulka wareegiisu wuxuu ku leeyahay trigonometry wadnahaaga beatkiisu trigonometry soo ma jeedi yani natural phenomena so natural logarithm ma maqashaan wax la yiraahdo natural log soo ma aragtaan natural waxa weeye nature-ka siduu nooluhu iyo nolosha oo dhan adduunkan qaabka u shaqeynoo dhami mathematically waxay ku moral garaysan tahay natural log iyo trigonometry soo ma aragti marka qofku xataa marka la ridayo shay trajectory haddaad rabto yani inaad rido dadkan hadda hubka sawaariikhda iyo rido soo ma arag saaruuqa in halka ka rido halka arabto inuu ku dhaco goob mucaayana location mucaayana waxaad u baahantay inaad calculate angle-ka aad trajectory-ga uu ku dhacayo distance-gu u jiro waa trigonometry waa saddexagalka waa trigonometry weeyaan marka waxaasoo dhami noloshii oo dhan qofka waa in marka applicationka shayga iyo real world-ka calaaqadu la leeyahay waa in la bari karo markaasaa leeninku wuxuu u samaynayaa meaning u samaynaya macno u samaynaya waxbarashadu sidoo kale waa inay qofka bedesho valuegiisa qiimkiisa innaga hadda meesha aynu ka liminna waa halkaas ardaygu iskuul buu tagaa lacag baa laga qaadaa macallinku sabuuradda waxbuu ku xariiqaa fursad uu engage gareeyo ardaygaba uma hayo maxaa laga ardayga inuu engage gareeyo yani aniga hadda iskuulaad baan ka shaqayn jiray mararka qaarkood maraan PhD sameeyay arday ahaa loo dhowr iyo toban iskuul baan ingiriis ka shaqeeyay waxaa la yaab lahaa dadka iskuulka ka shaqeeya macallimiinta iyo dadka kale ee iskuulka ka shaqeeya waxaa badnaa dadka kale u fiirso units baa behaviorka ka shaqeeya behaviorka ardayga akhlaaqiyaadkiisa iyo unit baa ka shaqeeya unit baa waxay ka shaqeeyaan ardada learning difficulty-ga leh waxbarashadu ku adag tahay si gaara in loo caawiyo dadka waddanka yimi isagoo luqadda aan aqoon si gooniya in loo caawiyo
intaas oo unit oo kala duwan qolaliya learning monitors oo barrierka qof kasta haysta to his learning in laga caawiyo yani waa intaasoo ummad baa u adeegaysa ardaygii si loo dhiso akhlaaqdiisii behaviorkiisii attitudekiisii aqoontiisii loo dhiso maaha keliya qofku intuu kalaas xaadiro ofa crowdida oo 56 arday fadhido oo iga durug iyo suxul iyo maanta la waxaynayo oo waqtigu xisadu macalinku intuu kala aamusinayo ay ku dhamaato marka waxbarashadaasi marka ilaa intee la eg bay qofka bedeli kartaa marka taasaa runtii sababaysa inaysan qofku uusan lahayn innaga waxaan u malaynayaa macallimiinta waxaa taraxashoon dulaabka waqtigii gambaleelka garaaca doctore warqad cilmi baaris oo soo saaray macadka sidra aad qortay adigu waxaa kaga hadashay waxaan loo yaqaan competence based education waxbarasho ku dhisan karaanka bal cilmi baaristaas faahfaahin guud naga sii iyo waxay ku salaysan tahay run ahaantii hadda caalamku wuxuu aada uga gudbayaa oo hadda kenyadan xataa inoo dhow iyo wadamadan xataa EAC hadda Soomaaliya waa ku biirtay East Africa EAC waxyaalaha go'aamiyeen waxaa ka mid ah in community-ga East Africa ay ka guuraan waxbarashadii traditionalka ahayd oo ay u gudbaan competency based education waxa la yiraahdo competency-ga waxaa laga wadaa ardayga in xoogga la saaro muxuu qofkani qaban karaa intii xoogga laga saari lahaa muxuu yaqaan Soomaaliya qofka xoogga in la saaro qofkani muxuu qaban karaa hadda masalan kubadda sida loo dheelo anigu hadda maskaxiyan waa aqaano foulka markuu yahay iyo offside-ka marka la galo iyo waxaasoo dhan oo markaan daawanayo waxaan walahi hebel baa khalday oo halkaan goolka dhaliyo oo saa yeelo marka la daawanayo premiership-ka iyo weel Soomaaliya laakiin garoon haddaan galo hal xabo tuuri karo kubad tuuri karo Soomaaliya yani farqiga u dhaxeeya competency-ga iyo ardaygu inuu waxa uu yaqaan taas weeyaan inuu marka in xooga saaraa waa tan hore weeye oo qofku muxuu ay tahay inuu yaqaan bayn xooga saaraa laakiin xooga ma saaro muxuu qofku qaban karaa waxa marka aad u kala duwanaanaya manhajka la adeegsanayo qaabka teaching pedagogy-ga waxyaalo dhan waa isbedelayaan soo ma garan xataa qaabka ardayga loo assess garanaya isbedelaysa midna waxa weeyaan qofku waa flexible oo individualized weeye oo base-ka ardayga ayay la soconaysaa xataa ingiriisku waa more competency based waxa arkaysaa hal class arday wada fadhiyo oo hal macallin leh haddana isku imtixaan ma gelayaan waxaa cajaabka ka mid tahay yani waa 3 group oo tier 1 tier 2 tier 3 bay kala yihiin foundation intermediate iyo higher hal macallin baa class ka wada jira 3 wax aan shaqo isku lahayn bayna kala dhiganayaan ardadaas inaguna halkii wax macallinku u dhigay inuu control lahayn soo ma halkaan yani 3 group oo midba qiimeyn gaar ah leeyahay oo qof walba ability-giisa yani inta uu kari karo khasab maaha ogow qofku inuu age mucayan gaaro inuu secondary galo marka qaar ka arkaysan qof 15 jir jaamacad dhiganay soo ma garan home schooling baad samayn kartaa yani qofku inuu wax baranayo baa loo sharci khasab ah laakiin school inuu aado khasab maaha qofku waxa laga rabaa inuu wax baranayo saadaraadid qofka ability-giisu uu keeni karo inta ay ku qaadan lahayd intaasoo sano hadduu ka yar uu ku master garayn karo then that's good يعني competency based marka qofka base-kiisa iyo intuu talaabadu qaadi karo iyo muxuu kari karaa iyo qofkan muxuu qaban karaa waa itusoo itaabsi yani adiga waxa uu aqaanaa macna ma sameynayso hadda fiir dad badan baa jaamacadaha ka soo baxay anaga shirkad baan nahay qof u arkaysa badan hadda waxa la dhigto waxa ugu badan kulli maxaa la dhigtaa waxa business soo ma yani qof business ka ugu badan baayda maadooyinka soo sida khaasatan business administration anagana ganacsi ma ka shaqeynaa qof baa ku imaan business ka soo baxay haddaad weydiiso waa maxay business model ama waxaad qortaa business plan iyo wax la mid ah yani wala shay inaad dib retain u samaysay u baahanta intaas oo dhan marka runtii qofku waxa muhiim ah competency based qofku muxuu qaban karaa aniga uma baahni qofkan dib inaan u train garayo uma baahni inaan kharash kale ku bixiyo waa inuu qofku meesha uu wax ka soo baranayo isagoo oo wixii qaban kara master gareeyay waa inuu maaragtay marka yimaado marka competency based marka qofku muxuu qaban karaa bay ku base karaysaa more than what he is expected to know waxbarashada dalkeena markii loo soo laabto ama aan fiirino ma tahay mid kobcisa garaadka ardayda dhista shakhsiyadda qofka ama ardayga
leh tayadii loo baahnaa tayadaas oo ardaygu uga baahan yahay nolosha dhabta ah sida hadda aad sheegayso kale ama shaqada goobta shaqada ama cilmiga uu baranayay in badan baa waxbarashada Puntland ku dhex jirta ama Soomaaliya intii badan oo aad fiirinaysid waxbarashadeenu ma tahay wixii quruxda badnaa hadda aad sheegtay ama warqadda cilmi baarista ku qornayd competence based mid soo saarta dabcan su-aasha jawaabtooda kooban waa maya sababta caawa dhan waxaynu ka sheekeynaynay natiijadaasi waxay ka dhalatay waxbarashadeena way ka dhalatay waxbarashadeenu ma soo saarto qof akhlaaqdii loo baahnaa leh waxbarashadeenu ma soo saarto qof leh skillkii loo baahnaa waxbarashadeenu ma soo saarto qof leh yani attitude-kii xataa tasawurkii loo baahnaa qof leh ma soo saarto maalin dhexaasan nin dhalinyaro ah oo masaajidka igula tukanaya baan wareysan waxaan adal iskuulka ka waran wuxuu yidhi iskuulku waa bahal qashin oo waxba aan laga baran soo ma garan ya ardayga marka waa iskuulku dhiganayay waxaan adeer haddii adiga iskuulka aad u aragto inuu maxaa u aadaa waxa noocaas ah maxaa u aadaysaa adiga soo ma garan marka waxaan isku dayay inaan idhaahdo mushkilada adeer iskuulka maaha mushkilada waa adiga iskuulku wuxuu ku siiyey opportunity inaad wax baran kartid laakiin qofka la rabo inuu isagu wax isbaro qofka la rabo inuu online galo qofka la rabo inuu tuition kala qabsado waa adiga wey waa opportunity inaad wax baran karto iskuulku siiyey platform buu ku siiyey laakiin inaad adigu wax barato aday kugu xiran tahay midda labaad haddaad iskuulka caydo oo aad burush madow aad mariso qofkaas see ugu dhiiranaya subax intuu ka laho inuu tago yani ilaa intaa in laeg buu qofkaasi wax baran karaa waa wax aad u adag weeye marka runtii waxbarashadeena maanta waalidku xataa waxaad moodaa waa mushkilo dhinac walba ma yani dadka waxbarashada ka shaqeeya keliya waalidkii waa mushkilo haysata weeye bulshada inteena kale mushkilo haysata weeye waa mushkilo runtii caama oo dad maskaxiyan burburay nidaam ahaan burburay dadku waa traumatized xoogoodu marka waxbarasho nooca ku dhex jirta weeye waalidku ilmaha waxaa laga yaabaa inuu diro inuu ka mashquulo oo aanu dabagelin oo aanu raadin iskoorkiisu muxuu yahay oo uusan ogaan ilmahan aqoontiisu maxay tahay yani uusan haba yaraatee wax wara u hayn ilmihiisa aanu hayn marka runtii waa mushkilo caama oo iskuulka keliya aan ahayn dabcan dadka waxbarashada ka shaqeeya iyaga asal u ah ama ha noqoto iskuulaadka dadka jooga macallimiintii maamulkii ama wasaaraddii iyo ciddii ay khusayada regulate garanaysay laakiin waa bulshada oo dhan baa la rabaa waa problem bulshada oo dhan haysta aqoon-yahanka problem haysta wey imise qof baa hadda u campaign gareeya waxbarashada in la hagaajiyo imise aragtan u campaign gareynaya yani almost waa zero bay ku dhowdahay yani marka runtii waa dhibaato bulshada oo dhan haysata wey oo u baahan in dadku waxaa laga yaabaa in dhaqaalaha haysta inay ka fekeraan ilmahooda inay la cararaan oo ay geeyaan wadamo kale laakiin ka fekeri mayo war systemkii aad ku noolayd see loo hormariyaa idin ka fekeri mayso baahida suuqa shaqada iyo waxbarashada dalkeena ma isku habooyihiin inta badan dhalinyarada waxaa lagu eedeeyaa waxa la yihahdaa waxay galaan maadooyinkan socialkaasaa sheegaysay haddii suuqa ay fiiriyaanna ma jiraan kuliyaad badan oo ay ardaygu option u leeyahay haddana baahidii suuqii kambaniyadii waa qaylinayaan waxay leeyihiin dadku xirfad ma leh ardayda waxba lama baro marka see la isku waafajin karaa baahida suuqa ka jira baahiyaha suuqa ka jirana maxay yihiin runtii horta xaqiiqdii in dadku ay bartaan businesska xoogga la saaro fikrad xun maaha sababtoo waddanka Soomaaliya hadda dadka 99.9 private sector bay ama u shaqeeyaan ama iskood bay u shaqeystaan yani wax dawladdu shaqeeyo wax aad u yar wey hadda Puntland oo dhan shaqaalaha dawladdu waxaan u maleynayaa inaanu 6,000 ka badnay haddii la boonbooniyo 6,000 kama badna taqriiban population-keenu imisuu yahay haddii dadka dawladdu 4 milyan waxbay sheegataa iyo wax la mid ah marka 6,000 maxay ka tahay saa daraadeed in dadka la baro skills halka attitude oo khaldan wuxuu yahay dadku waxay u bartaan cid inay u shaqeeyaan yani waxbarashada waxay u bartaan cid inay u shaqeeyaan laakiin waxbarashada uma bartaan qofku inuu kartidiisa iyo aqoontiisa kor u qaado si wax soo saar u yeesho wala aad u kala duwan soo ma yani qofku uma joogo wuxuu leeyahay shahaadan soo qaatay shaqaan rabaa buu qofku oranaya laakiin qofku waxa la rabaa business markuu baran inuu fahmo sida businessku u shaqeeyo hal abuur yeelan karo isagu uu ganacsi sameeyo entrepreneur uu noqdo muhiimadda ugu badan waa taas maadaama waxa ugu badan laga shaqeystaa uu kaayay laakiin inaga hadda waxa hamigoodu yahay inuu cid u shaqeeyo at the same time levelkii aqoonta ee loo baahnaa ma lahan oo de nature-ka jaamacadaheena iyo waa ka warhaynaa
ardaygu value chain wax la yiraahdo ugu jaamacadaha kale mushkiladu maaha sababta jaamacadaha waxa fiid garaynaya secondary waxa fiid garaynaya kii dhexe ka dhexe waxa fiid garaynaya primary waa chain weeyaan soo ma garan marka qofka uu jaamacada yimaado aad u hooseeya laga filmayo inuu u dhigo wax mustawa sare ah wuxuu isleeyahay waxaad u dhigtaa wuxuun ardaygu uu ku moodi karo soo ma garan wixii oo dhan baa marka hoos isula degaya soo ma aragtaan marka value chain-ka oo dhan weeye mushkiladu ay tahay marka runtii suuqa shaqada iyo waxbarashadeenu iskuma habboona digrigu waa digrigii yes regulation xumaa jirta waxa laga yaabaa garow kale intaasoo business school inay ka furan yihiin oo laga yaabo inay u baahnayd hal iskuul keli ah oo businesska dhiga ay u baahnayd oo hal macallin baa haddana wareegaya yani oo tanna aadaya mid walba 5 arday baa fadhida soo ma aragtid midna kama bixi karto kharashkii kama bixi karto marka waxaasoo dhan marka waa mushkilo runtii regulation xumo oo saameyn ku yeelanaysa yani cascading effect dhinac walba bay runtii saameyn ku yeelanaysa waxbarashada dalkeenu waa qaali markii loo fiiriyo celcelis ahaan dakhliga qoyska Soomaaliga suurtagal ma tahay markii xataan u soo noqono hoos Puntland in la helo waxbarasho bilaash ama qiimo jaban ugu yaraan dugsiyada hoose ama dhexe ma jiraan nidaamyo maalgelineed oo ay dawladuhu heerarkeeda kala duwan ay hirgelin karaan arintaas oo iyadoo tusaalahaan inta badan waxa la sheegaa miisaaniyadda in 7% ay ugu jirto waxbarashada heer federaal iyo heer maamul goboleed inta badan maamul goboleedyadu oo qorshuhuna yahay in sanad walba uu 1% ku kordho marka ma isdhihi kartaa waxbarashada dalka hoose free baa laga dhigi karaa runtii haddii lagu talagalo free waa laga dhigi karaa sababtoo waxay u baahan tahay oo keli ah budgetka dawladdu ay waxbarashada ugu talagashay inta u qorshaysan inay siiso korna u qaado hadda inaga waxa inoo qorshay 7% waxay u baahan tahay taqriiban in la gaarsiiyo 15% ilaa 20 haddii budgetka dawladda laga gaarsiiyo wax weyn bay qaban kartaa laana dawladdu iskuulaadka intay ka leedahay wax yar way garow imisa iskuul baa dawladdu gacanta ku haysaa ay leedahay waxa laga yaabaa 2 primary ama wax la mid ah hal secondary wax taas oo kala ah inta kale waa private-ka dawladdu soft power bay adeegsan kartaa maadaama uu business yahay يعني شروطه معينة بيكون حكرتها ستاندر إنه ميتجريان سكول كان ستاندر كان ميتجريان وين لحره إنه لقوي أرض الله ما بهنا وهو بهاي سكولات كإن رانكين الله سمايه إن لقيمة سكول كان ميتجرين كرين أنت أصلا مينيمم معلن وكواليفاي إسنشوجن سكول كي كلاس ساس كيسو أنت وسنكبدنان سكول كي ماتيريال كنوع عن لهين يعني وحي بهانته ما دام بزنس وياهي in wixii aan quality loo baahnaa aan buuxin karin in la xiro way marka saadaradeed waxay noqonaysaa waxa soo baxaya xataa waa laga yaabaa iskuulaad badan inay xirmaan laakiin intii marka la hayay baa macna sameynaysa hadda inoo soo baxdo 10,000 oo arday oo aan qof laga qaadan karin iyo 5,000 inoo soo baxdo oo qiimo leh kaba wanaagsan يعني waxa productive 5,000 inoo soo baxdo oo macna sameynaysa meeshii 10,000 oo aan macna sameynay inoo soo bixi lahayd marka runtii waa la tayeyn karaa waxbarashada dhowr saacadood baa loo tayeyn karaa dawladda oo dhaqaalaha ay ku bixinayso siisa oo korna hadda maxay kor u qaadaa 7 baa siin soo ma garan waxay waxbarashada ku dhaqaaqada oo kaliya caawimaado ay heedo banaanka ay bixiyaan ku dhaqaaqada iyo waalidka lacagaha laga qaado bay ku dhaqaaqdaa haddii marka dawladdu ay intii loogu talagalay bixiso حتى معلمين مشاهر كود وحلو بري وحل اسكو هيستي بروجكتيو ويل بانكيga iyo wax la mid ah ay bixinayaan baa macallimiinta mushaar siinay dawladda rabaa inay hadda Soomaaliland tan dariska aan nahay iska daa iskuulaadka jaamacadaha bay kabtaay lacag ku bixisaa marka runtii budgetkeenu waa inoo saamixi karaa haddii priority aynu siino in waxbarashada la maalgeliyo waxa la sameyn karaa charity-yaal ka shaqeeya waxbarashada oo ganacsatada lacag ka qaada siyaabo kale dadka alumni-ga dadkii ka baxay iskuulaadkaas in la raadiyo oo maaragtay si badan baa runtii haddii loo soo jeensado waxbarashada wax looga qaban karaa siyaasadda waxbarashada la hagaajiyo monitoringka dawladda oo kor u qaada hadda waa la kala xishoodaa oo yani dawladdu xataa iskuulaadka qaarkood ay ogtahay inay liitaan
inay xirto ama ay xataa warning siiso waa ka xishootaa oo waxaa laga yaabaa inay la yidhaha war nimankaasi reer bay ka soo jeedaan oo baarlamaan baa ku imaanaya madaxweyne haddana kula soo hadlay wuxuu leeyahay iskuulka maxaa ka rabtaan dadtolka abaale soo ma garan iyo wax la mid ah marka runtii waxay u baahan tahay in si dhaba inta loo xisaabtamo waxbarashada laga saaro siyaasadda waxbarashada in laga saaro yani xiniftanka kale in laga saaro in la arko mustaqbalka waddankan iyo dadkani waa waxbarasho dadku haddii aanay ilmahooda generationkooda waxbaran yani waa burburayaan runtii awal baynu 30 sano burbur ku jirnay waxa kaliya aynu ummadaha kale ku gaari karo u fiirso yani hadda inaynu traditional waygii u korro ma awoodi karo 30 sano inuu ka dambeeyna caalamka dariiqada kaliya aynu hadda ku kori karno waa inaynu more knowledge based aynu noqono xataa economigaynu inuu isu bedelo knowledge based technology-ga inaynu adeegsano ogaada technology-gu ma kala yaqaan waddan horumaray iyo waddan aan horumaray ChatGPT isku access wiilka garowa jooga iyo wiilka Mareykanka jooga isku access bay u leeyihiin soo ma aragtay internetka isku access bay u leeyihiin waxa hadda aynu ku horumari karno waa inaynu traditionalka ka gudubno oo more hadda technology-ga xooga saarno hadda iskuulaadkeenu fiiri ilmo kasta waxa laga smartphone u wato laakiin tablet ma wato iskuulaadka computer labs ma lahan smart board ma lahan soo ma garan mara waxa xataa iskuulkii ma leh hygiene iyo mas'uuliyii yani waa liitaan environment-gu maaha environment maaragtay ku farax gelinaya maaha waxa soo dhan baa u baahan runtii wax laga qabto oo waana laga qaban karaa xaqiiqdii dugsiyada casriga ah oo leh manaahij macallimiin iyo nidaam heer caalami ah kama jiraan Puntland Somaliland oo dariskeena ah waxa ka jira ilaa 4 dugsi oo leh waxa loo yaqaan international exams ama gala imtixaano caalami ah taasoo sababtay in ardayda ka baxay dugsiyadaas ay waxbarasho ka helaan dunida jaamacadaha ugu sareeya halka Puntland aan hal iskuul ah oo international aysan ku online arinta maxay ku dhacday yaasa mas'uuliyadeeda iska leh runtii horta imtixaanaadka internationalka IGCSE-ga iyo waxa la midka ahi aniga hadda intaan ogahay Soomaaliya hal qolaba kale oo sheekh oo muddo hore xilligii ilaa dawladda siyaad bare xilligeedii ahayd intay dawladdu jirtay iskuulaadka kale oo hadda anigu hadda Soomaaliland kuma aqaan abaarso badanaa niman ajaaniba baa barnaamijka keensaday oo waxa laga yaabaa in siyaabo kale ay wax u samaystaan laakiin imtixaanaadka idexalka iyo waxa la midka ah qolada kaliya baa kale waan ogahay dad badan oo isku dayay inay soo xirtaan laakiin ay ka soo diideen sababta kalsoonida aan lagu qabin Soomaaliya deganaanshaheeda robustness-ka systemka dadkii in loo qishayo amnigii imtixaanka waxyaalo badan baa jira oo xataa dad waxaan ugu ogahay ardada intay qaadaan Puntland Ethiopia geeya oo imtixaan say ugu soo galaan basasna inay saaran ilaa xadkaas marka dhibaato waxa weeyaan taasi xoogeedu systemka dawladnimo oo aan wali sidii la rabay u xoog badnayn iyo dawladda aan gadin inuu waddankani ay systemkaas oo kale ka hirgeli karo inta badan private sector baa isku mashquuliya laakiin wali dawladdu inay hay'adaha bixiyo imtixaanka noocaas oo kale aad ulama aysan xiriirin si ay waddanka uga hirgalaan marka waa mushkilo noocaasa ganacsatada naftigoodu waxay u baahan inay ka arkaan inuu return leeyahay inay maalgeliyaan waxbarashada noocaas oo kale marka wali caqabad amni iyo stability iyo wax la mid ah haysta runtii Puntland qoysaska ka guuraya dhowr iyo 10 sano ka dambeysay waxyaabaha ugu weyn ee ka cabanaya markii la weydiiyo waxa kamid ahaa waxbarashada inay tayo badan lahayd saasheegina hadda iskuulo international meesha ku online ardayda qoysaskaas inta badan waa dad qoysas ladan oo heli kara inay waxbarasho fiican ay ardadooda ku bixiyaan qoysas badan iyagoo waddanka joogaba waxay sameeyaan ciyaalka ka saaran iskuulaadka ayaa waxay geeyaan wax loo yaqaan home teaching ama macallimiin ama inta ugu soo gala aaladda online-ka ama maartay ugu yimaado si physical ay ugu dhigaan halkaasna ay ugu diyaariyaan inay imtixaanaadka galaan arintaas maxaa lagu xalin karaa runtii horta waxbarashadu inay tayo yeelato ama ay noqoto mid waxtar ah kuma xira in hay'adaha international ay xiriir la leedahay taarta waa in la fahmo yani waxbarashadu inay tayo yeelato oo arday ilmuhu waxbarto shardi uma aha inay calaaqo la leedahay IGCSE wax la mid ah shardi uma aha
laakiin innagaa ina ku xiran tahay inaan tayeyno waxbarashadeena. midda labaad, waalidka ilmaha la tegaya fikirku aaminsan yahay waxaa ka mid a in ardayga inuu waxbarto ay tahay mas-uuliyadda iskuulka keli ah. taana waa arrin khalada. ardayga inuu waxbarto mas-uuliyaddiisa iskuulka keliya ma leh, waalidkuna waa leeyahay. yacni iskuulka ardaygu markuu ilmuhu aado wuxuu u baahan yahay markuu ka soo laabto inuu home tuition u sameeyo oo waalidku aanu ku hadlayn, iskuulka inaanu ku hadlayn. waa inuu jira homework clubs inay jiraan oo waalidiintu ay weekendiga iyo xilliga ardayda ay geeyaan. soo ma aragtid? marka innagii baan waxaanu aaminsannahay ka shacab ahaan mas-uuliyadda waxbarashada inuu iskuulka kaliya leeyahay oo waalidku aanu calaaqa la lahayn. taa marka fikirkaa waa inuu isbedelo. waalidku waa inuu fahmo ilmahaagu inuu waxbarto mas-uuliyadda koowaad isagay saaranta. waa inuu role model u yahay ilmihiisa, waa inuu u yahay. cunugan hadda 2 jira baa ii jooga guriga, bugaag baa marka meel yaalla. wuxuu arkaa marka annaga waxa buug i akhrinayna, hadda wuu la soo baxaa, meel buu fadhiisanayaa, wixii buu kala furayaa. soo ma aragtid? yacni wuxuu isku dayayaa isaguna inuu copycat, inuu imitate gareeyo qofka adultiga waxa uu yahay. yacni ilmaha waxaa role model koowaad u ah waalidka u ah. haddii waalidku aanu qiimaha waxbarashada fahamsanayn, ilmahaasina qiimaha waxbarashada fahmi maayo. waxay u baahan tahay marka waalidku inuu ilmaha, annaga hadda hooyooyinkayo runtii waa nagu soo tabceen, ugu yaraan waxay samayn jireen habeenkii marka la gaaro fiidkii magaalada inaan wareegnay noo diidi jireen, faynuus bay noo shiidi jireen, qol baa nala ku xiri jiray, halkaa wax ku akhriyaana la oran jiray. soo ma aragti? maanta qofkii facebookayga akhriyey mar baan qoraal yar oo wiil faynuus wax ku akhrinaya aan wax yar ka soo qoray. soo ma aragti? marka faynuuska inta qolna la ku xiraa la oran jiray wax ku akhriya. soo ma aragti? waalidku marka mas-uuliyad waxaa ka saarayd ilmihiisu inuu waxbarto, waalid ka saaranta. intaa marka ilmahaaga la aadi lahayd meel kale oo weli adiga halka aad joogi lahayd, u fiirsan waxay waalidkaa sameeyaan. ilmihii Kenya geynayaa, Nakuru iyo meelo mid u geynayaa. hooyadii ilmihii keliya meesha jooga, bii'a aanu aqoon iyo bulsho aanu la dhaqan ahayn, la luuqad ahayn buu dhex geeyey. isagana garow ku soo noqday. ilmihiis kama warhayo wuxuu baranayo, dhaqanka uu qaadanayo kama warhayo. yacni لأنه waxaa ka dhaadhacsan waxbarashada, waxaa ka mas-uula ilmihiisa, iskuulka ka dhaadhacsan. waxbarashada ilmahaaga adaa ka mas-uula. arrintaas waa in dadka runtii laga dhaadhiciyo. waa inaanu ku hadlayn iskuulka ilmaha, waa inaanu ku hadlayn xataa entertainmentigiisa. u fiirso meelaha waalidku ay mushkilad ka sameynaya waxaa ka mid ah ilmaha entertainmentigiisa isagaa ka mas-uula. waa in ilmuhu markuu iskuulka ka yimaado, hadduu dugsi ka yahay, waa inuu isku dayaa time inuu siiyo, uu ku kaxeeyo, magaalada banaankeeda geeyo, meelo maqaaxayaa la tago. ilmuhu inuu gacanta ku hayo. laakiin ilmuhu inuu markuu yimaado uusan ka warhayn, subaxdiisuu guriga uga baxo isagoo ilmuhu markaa ama hurdo ama iskuul aaday, habeenkiina isagoo seexday u yimaado, ama aan ogeyn gooruu soo galay. marka mushkilada runtii waa habdhaqanka waalidka baa waxay u baahantay in la bedelo. marka inuu kaxeeyo hadda uu Kenya geeyo macna soo kordhin mayso runtii. waxaynu u baahanay inaynu fakarkeena bedelo, inaynu waxbarashadii inuu maalgelino waalidka. laakiin weli waa jirtaa baahida ah in Puntland waxbarashada iskuuladaas ay maqan tahay. yes, iskuulaadkeenu tayo ma leh, waa wax jira weeye. laakiin inaanay tayo lahayn mas-uuliyadda iskuulka keliya maaha. waxaan rabaa inaan tilmaamo waalidkana qayb bay ka tahay. hadduu macallinku og yahay in ilmahan lasoo caawinayo oo guriga laga soo caawinayo oo subaxdii uu imaanayo isagoo casarkii shalay iyo kii asbuuc hore yaqaano, oo la samaynayo formative assessment, waxa la yidhahdo qofka joogto lala socdo progresskiisa, lala socdo, oo access waalidku u leeyahay platform uu arki karo assignmentadii iskuulka ardayga la siiyey, mid walba muxuu ka keenay, xageebuu marayaa, waxaasoo dhan uu heli karo, uu arki karo. runtii wax badan baa isbedeli lahaa. yani more inaynu learning technology-ga aynu xooga saarnay u baahan. si loo helo nidaam waxbarasho oo tayo sare leh lana jaan qaadi kara baahida dalkeena, waxaa door muhiim ku leh macalinka. waqti badan macalinka ma aynan gelin, laakiin hadda waxaan rabnaa su-aasha inaan macalinka aan focus ka saarno. sidee loo heli karaa macalimiin tababaran oo baahidaas buuxin kara? intaana su-aasha aadan u gelin jawaabta, Puntland waxaa dhici jirtay waayadii hore macalimiin boorama nooga yimid, waa inta badan macalimiinka ahaan jiray. haddana macadka tababarka macalimiinta aad xustay in 3 sano ka hor xiray, macalimiin badan bay soo saaraan oo reer Puntland. marka uu markaa dhameeyay iyaguna iskuuladii ma aadaan. marka marka baahida aan qabno ka Soomaali ahaan, ka Puntland ahaan, macalimiinta ah see looga bixi karaa? run ahaantii waxay u baahan tahay keliya policy change inay u baahan tahay. maalan
waxaa la samayn karaa in la yidhahdo macalinka tababaran iyo macalinka aan tababarnayn inaanay isku value ahayn, inaanay isku mushahaar ahayn. soo ma garan yani waa in taas waa qodob. labo, iskuulaadka waa in lagu shardiyaa minimum numberka oo macalin tababaran ay tahay inay hayr gareeyaan. dadka iskuulkaas waa inuu isxiraa. yani iskuulka waxaa laga yaabaa inuu dhaho affordability-gaaga macalin tababaran kama bixi kartid, qof uun suuqa ka soo kaxayso ilmaha kaa mashquuliya oo aad $100 ama $150 aad siisid. soo ma aragti mas-uuliyadda marka waa mas-uuliyadda wasaaradda waxbarashada idaa la rabo inay kontaroosho, oo iskuulaad kasta waa inay shardi uga dhigtaa tiro intaa leeg waa inayna ka yaraan macalimiinta tababaran. saasoo kale waa in loo sameeyaa raid macalinka noloshiisa dabooli karta tababaran in la siiyo. macalinka haddaanu noloshiisa ka heli karin iskuulkii meel kaloo aadaya. marka waa inay jirtaa siyaasad odhanaysa macalinka tababaran mushahaarkiisu kama yaraan karo minimum wage, kama yaraan karo intaas, inuu ku noolaan karo macalinku isku daberi karo. iskuulkuna wuxuu ku khasban yahay inuu hayargareeyo ugu yaraan macalin tababaran intaas percentageka macalimiinta tababaran, iyo ilaa laga gaaro dabcan si graduala in la yidhaahdo macalin aan tababarayn wax ma dhigi karo. soo ma aragti laakiin intii laga gaarayo waxaa la samayn karaa si gradual in la yidhaahdo sanadka ugu horeeya macalimiinta intaa leeg boqolkiiba waa inay tababaran yihiin, sanadka ku xiga waa inay boqolkiiba intaa gaaraan, ilaa sanadka saddexaad ama afraad iskuul waa inaan la helin iskuul macalimiintiisu aanay tababarayn. macalinkana minimum wage loo sameeyo, markaa macnay samayn lahayd waxbarasho macnay samayn lahayd. controlna la sameeyo iskuulaadkan la iska furanayo aad moodsid dabakaayooyinka oo kale, oo yani qofkii rabaaba uu iskuul iska furanayo waa in la control, oo iskuulku uu criteria mucayan inuu buuxiyo. baahidii ma loo qabaa iskuul kale ma buuxin karaa, population per school inteeba boqolkii intaasoo boqoloo kun oo populationaba kastaba intee iskuul baa la rabaa inay yeeshaan. waxaasoo dhan control bay u baahan tahay, siyaasad bay u baahan. waxaan gelayaa su-aashii ugu dambeysay. puntland waxay leedahay jaaliyad badan oo diaspora ah oo meelo badan ku kala nool adduunka. jaaliyadaas waxaa ku jira dad badan aqoon-yahana oo waxbarasho ka shaqeeya, oo dabcan adigu aad nagala joogtay maantana si wanaag. marka dadkaas see looga faa'iidaysan karaa, weliba waxbarashadeennana looga faa'iidayn karaa? runtii dadkaasi siyaabo badan baa looga faa'iidayn karaa. kow, waxaa looga faa'iidayn karaa qof ahaan aqoontooda iyo khibradooda in xilliyada fasaxa loo yeerto la keeno oo ay waddan ka faa'iideeyaan. xilliyada samarka oo kale iyo ama xilliyada fasaxyada qof walba xilli fasax u qaadan karaa in dadka la keeno. meelo badanoo saa yeelaa waa jiraan oo dadkooda aqoon-yahanka meelaha jooga invite gareey oo u yeerta. waxaa kaloo looga faa'iidaysan karaa dhaqaale ahaan inay dacmiyaan waxbarashada. intaan yurub joogay weli ma arag dad yurub wareegaya u kambayn garanaya waxbarashada in la taageero. nolosheeda ma arag eva. soo ma garan marka waxay u baahan tahay in dad ka shaqeeya oo dhaqaale waa sahlan tahay in lagu bixiyo, in laga helo dhaqaale, in dadka diasporada ahi dhaqaale laga soo ururiyo, lagu dacmiyo waxbarashada, lagu dacmiyo iyaga naftigooda qof ahaan in looga faa'iidaysto khibradooda iyo aqoontooda waddanka la keeno, ama macalimiinta ha tababareen, ama iskuulaadka yani seminaar ha qabteen, ama iskuulaadka caalamka meel aan maalin laga faa'iidaysan ma jiro. xataa xilliga ay fasaxyada leeyahay iskuulaad community ka faa'iidaysta. anaga iskuulaadkeena xilliga ay xiran yihiin riyaha ku xirooda, soo ma xataa jaamacadaha riyaha ku xirooda, soo ma garan ya markaa tagtid yani waa meel ay xoolo ku xiroodaan. waxay u baahan yihiin iskuulaadkaasi facility-gaasi inaan habeen iyo subax midna aysan banaanaan, soo ma garan, oo xilliga ardayda ay ka maqantay community-ga kale looga faa'iideeyo oo intaasoo project lagu fulinayo. soo ma aragtid marka meelaha waxaa leeyahay community owned waa in community-gu inuu waxaan leeyahay waa in la daraaseeyo, waa in la dareensiiyo. innagu hadda attitude-keena wuxuu yahay ama dowlad baa leh oo belo kale, dowladda waa belo kale ya dowlad baa leh inagu ma lihin, ama dad ganacsato barayfadaa leh inagu ma lihin. soo ma aragtid fikirkaas wuxuu baa inuu isbedelo. waa in iskuulaadku inagu inaynu leenahay waa inaynu fahmno oo dhismayaashana ka faa'iidaysano, yani oo ilmaheena uga faa'iideyno. ilmaha hadda banaanka tooreyaha iyo maaragtay iyo mobaylka furanaya haddii loo samayn lahaa barnaamij lagu mashquuliyo oo iskuulaadkaas ka xiran loogu samayn lahaa runtii wax badan baa isbedeli lahaa.